madaxweyne hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa cabsi xoogan soo wajahday waxaana uu adkaystay dhufaysyada isagoo sidoo kale ciidamo badan soo dhoobay hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa tan iyo markii uu ka soo laabtay magaalada Garowe oo uu raacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaa dhaleeceemo xoogan uu kala kulmayay siyaasiyiinta ay isku beesha yihiin iyadoo si weyn looga soo horjeeday qorshaha Garowe uu ku tagay. dhanka kale waxa uu ka mid yahay xubnaha hortaagan amaba xilligan u taagan la dagaalanka wax ka bedelka dastuurka ee dawladdu ay wado waxaana cabsi xoogan uu ka qabaa in ay waaro uga yimaadaan dawladda. waxaa la kordhiyey tirada ciidamada ee ilaalinaya hoyga uu ka degan yahay Muqdisho. sidoo kale waxaa lagu xiray guriga uu degan yahay goobo aad loo ilaaliyo iyo ciid aad u fara badan oo dhufayska lagu adkeeyay. arrintan ay muujinaysaa in Sheekh Shariif Sheekh Axmed cabsi badan uu qabo isla markaana uu ka digtoon yahay in si la mid ah weeraradii dawladdii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay ku qaaday mucaaradka ay suurtagal tahay inuu la kulmo walow dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horey si cad ay ugu sheegtay inay diyaar u tahay dhageysiga afkaaraha kala duwan ee ka imaanaya siyaasiyiinta. madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana khudbadii ugu dambeysay uu jeediyay wuxuu ku sheegay inay ixtiraamayaan oo ay dhageysanayaan soo jeedinta madaxdii hore ee dalka soo hogaamisay hase yeeshee aysan ka yeeli doonin inaan hore loo dhaqaaqin ee la joogo meeshii iyagu awrta ay ku dabreen in dalku hore u socdana inay lugaha ku dhaganaadaan suurtagal aysan ahayn. madaxweynuhu waxa uu soo jeediyey xubnahan in taladooda ay la yimaadaan miiska ay soo saaraan kalena doodaan dawladda wixii cabasho ay qabaan dawladduna diyaar ay u tahay inay xalliso wixii ay ku qaldan tahay ee loo arko in iyadoo ay baal marsan tahay amaba toosin ee madaxdu ay la yimaadaan. mucaaradka oo dhan ayaa cabsidan qaba waxaana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dhankiisa suurtagal sida xogaha soo baxaya itibaaxayaan in maalmaha soo aadanba uu dib uga laabto dalka kuna laabto dalka Qatar oo markii hore uu ka yimid maadaama damaciisa siyaasadeed uu fuli waayay. laba qorshe oo waaweyn oo u yimid Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isku daygoodana uu sameeyay ayaa fashilmay. midda koobaad waxay ahayd in Muqdisho uu ga dhawaaqo isbahaysi ay yeeshaan isaga iyo madaxda mucaaradka waa uu waayay wax garab ah oo aan ka ahayn Sheekh Shariif Sheekh Axmed. xubnaha mucaaradka kale ayaana dhammaantood sacad uga diiday in isbahaysi ay la galaan maadaama ay ku eedeeyaan in xilligii talada uu joogay uu si cad u beegsaday aysan jirin sabab hadda ay ugu garab siin karaan in dawladdu uu colaadiyo iyo in ay isaga ka barbar hadlaan iyagoo taageeraya. arrinta labaad waxay ahayd inuu qorsheeyey in maadaama isbahaysiga Muqdisho uu ka doonay uu socon waayay hab qabiilaysan inuu u wajaho wax ka bedelka dastuurka la dagaalankiisa iyo ka hor imaanshaha dawladda. Garowe ayuuna ugu tagay Siciid Cabdullaahi Deni si uu ugu garab siiyo qorshihiisa isna waa ku gacan sayray oo xitaa Deni wuxuu diiday in Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo warmurtiyeedka ay soo saareen isaga lagu xuso inuu qayb ka yahay amaba nuqulada warmurtiyeedka ee ay tilmaameen in ay uga soo horjeedaan dadaalada socda uu isagu ku garab taagan yahay. Deni iyadoo la og yahay xiisadda siyaasadeed ee kala dhaxaysa dawladda Soomaaliya ayuu haddana ka gaabsaday in haba yaraatee arrinta mucaaradka uu barbar taagnaado waxaana suurtagal ah in isaga iyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay doonayaan xaajadooda in hoos ay u xalliyaan Puntlandna ay ka shaqayso wax ka bedelka dastuurka ee socda kadib marka arrintooda miiska wadahadalka lagu dhameeyo.